waa tahay marka hore dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogtaan waa salaamaya marka labaadna salaanka bacdi waxaan arkay gabar qof dumar weeg oo maanta oo dhan media iga aflagaadeynaysa waxaan u dhimayna maba garanayo sideedaba aniguna shakhsi baan ahay Ayuub baa la yiraahdayo dumarka si loola gurto ama loola jaqjaq yiraahdo ma aqaan horeyna duruustaas uma soo dhigan gabadhaasi waxay ku andacoonaysay Ayuub baa wuxuu caayay ninka la yiraahdo fanaanka dhintay Allah u naxariistee Umar Dhuulla Cali Umar Dhuulla anigu ma caayin waxna kaba sheegin oraahdana ninna si yiri ninna soo qaaday dadka hadii si khaldan loo tusaya oo meesheeda laakiin anigu nin kale wax ka sheegayay oo li umada ku xamato Umar Dhuulla dhalay ayna soogi ka gudub Umar Dhuulla wax dhali kara dadna waa dhalay ilaahay dadkiisa ha u barakeeyo waana fanaan Soomaali legend oo dadka lagu daydo Soomaali kamid ah ilaahayna naxariistii janno ha siiyo isaga iyo waalidkiisa inta ka bacdi gabadhaas hal baan lee horta dhaqan iyo dadnimo anigu dumarnimo baan kula hadlayaa hadda waa ku ixtiraamaya oo sidii qof dumar ah u waanin lahaa baan ku waaninaya horta aniga iyo adigu waxaan garanaynaa meesha aad igala qaaday iyo waxaad igu aflagaadeynaysid horta nin yaqaanaana wajiga aad ummad u soo bandhigaysid iyo wajiga ku qarsoona waa kala labo ummadda badankeedna dad fahmaya oo garasho iyo aqoon leh Soomaaliya waa ka buuxdaa miidiyahana waa jooga waxa ka qaylisiinaya ka habhabsiinaya doolaha aad ruuxaysaahi waa Ayuub baa khayr wax ka sheegay adeerta mid ka iraahday khayr inuu murursada yahay waa garta inaad murursada u tahayna waa garanaya balse mid baa ilowdi murursada kuma aqoon markii uu uule habarta hooyada qaat u gadaysan uu uule ku koronayay inaga ardaalay labilay sanaayay marka hadii la ku rooyahay riyaha nuugu jiday murursada kuma aqoon hadii la ku rooyahay doolakhdan iyo hawiyanimadan ma adan aqoon isnaan la ku yiri waa jeerteen baa ku dhasho ku qaadan taa waxaan ku leeyahay asha xawaarahaaga ha ka gudbi wasaaso aan gabar ahaan kuula hadlay afxoo markay noqotana ana isku nacaano laakiin dumarka si loo xigto waan aqoon tan labaad oo aad ka dirsan tahan garanayaayo deena adeerkiin muxuu ahaa ninkii ma jeerteen muxuu ahaa Ismaaciil Salaani wuxuu ahaa ee ku yiri baafka dhar ku dhaqan mayo ee ka tagay de ma jeerteen ma wada ma jeerteen hadii mid ma jeerteen ku naco ku yiri ka dhaqaaqay inta aroos ku la ballamay deedana ayagoo reer ku noocaas ayagoo kulligood nooca ma haybad iyo aqalna waa u leena inaana baafka dhar ku dhaqan hadaad garasho iyo aqli iyo ixtiraam iyo qof waalid ixtiraama ama dhaqan Soomaaliyeed dad hayna adoo gabar Soomaaliyeed geesaha iyo fursada ma xiirateen dadku fanaaniin waa wadaya laakiin dhaqanka iyo haybada isdheeri maalin alla keenan inta idin soo fariisay adoo qof kala laado lagu arkay maalinkiisa qof nin baad kala laadaayo ka aamusa waliga nin hawiyaan ku soo dhigtay nin hawiyaan ku dhiga marwar maya ilka casmaan la ku dhigtid khadar yaro am jartay ku ismaan la ku dhigtid maanta anaga la laada maalin ma jartay ama nin daarooda on ku kala qabo mid baan ku leeyahay anuu hadalku ku soo koobayaa kugu badin may annagu baahafka dhar kuma dhaqano hadaan guursanayna dad caadi ah guursanaa hadaad garasho iyo aqal leedahayna oo maanta murursadu ay wax ka sheegay wacaysin hadaad garasho iyo ixtiraam leedahay habartii reer bicid yahaan ay ku soo noojisay ee meesha la yiraahdo nagaar daalay oo leelay saraay iyo injiro kugu xambaari jiday ayadaad wax ku cisayn lahayd ama garasho ku yeelan lahayd balse inta intaas midna mari Umar Dhuulla caayay hadii la ku rooyay Umar Dhuulla wax ka sheegay hadba geedka isku xoqaysin Umar Dhuulla waa fanaankay waa legend waa marxuun dhintay
ilaahay qabrigiisa ha u waasiciyo cumar dhulle inuu uga qiimo badan yahay u arkaa anigu inuu yahay fanaan maanta fanaaniinta lagu daydaa inuu yahay ama soomaali dadkeeda lagu dayan karo inuu yahay baan u arkaa hadalkayga aan cumar dhulle kusoo qaadayna cid allaale ciddii wax ka tabatay anigu cumar dhulle ma socon kama hadlayn ixtiraam baan u hayaa cid kale ma dhegaysto ciyaalka u dhalayna waa ka raaligelinayaa sidaa u fahanteen balse farxiyo gabadhan farxiyaa geesaha xiiran waxa ka qaylaysiinaya qaqaqaqaqa ku hayso cumar dhullena maaha fanaan kalena maaha daalin kalena maaha nin garanayaana waxa ka qaylaysiinayahay wax kale maahe waxa weeye haddii alla kuu roon yahay cadiifad xuna oo qaab daran oo khayre iyo murursada sababtoo ah reerkay ka dhalataa waxay yihiin sabool waxay u dhalatay wax murursada meel istaagay ninka ka aragta kaasi qaqa murursada annagaa murursada ka dhignay aad garanaysaa meesha dacsi 11 barkaa wadan jidhay goormaad muqdisho murursada barat wasaas aan ku ixtiraamayo wasaas aan waaridnimo kugula hadlayo ku ixtiraamayo adeeray doolaha igu soo ridan afxumo ana isu nacay laabtaydan afxumo kama gayootaba waana kuu sheegayaayo reeraha yagu ma wasan curyaamad anaa hadda kuu sheegay haddii midi kaaga tegay annagoo dhan reerko dhan ma wada reerko dhan kaama tegin waxaan arkay adoo ku haya hebelaaw walaalkayna kaba yaraahayow ila ribooday hay u kalif inaan dul fadhiisto meelaha ka soo qaqalaysid aan dhammaankaa wada xiro walaalkaa iyo waxaad ka sheekeynaysid midna aniga miidiya ma keenin midna meel igama saari karo ee cagadhigo dadkana qaarkii maahi wax badanna waa hayaa oo aan gabarnimo kugu ixtiraamayo halkaan soo wada dhigi karaa laakiin sharafteeda iyo karaamadeeda ka weyn noloshaydina miidiya gabarka waxa xaganta miidiya dhex taagnaa adeeray geedaha qaybaan la daaqin baa jira ee doolaha igu soo ridaan igata waa jiraan dad baafafka dhar ku dhaqda anugu mashiin baan ku dhaqdaa dharka baafafka dadku dhar ku dhaqda waa jiraan laakiin anugu mashiinada caadiga ah automatic aan ku dhaqdaa iga wareeji marka isu ka manhiin iga wareeji taasaan ku leeyahay ayadaana kuu roon kuna sharaf roon haddaan shaatiga haddaan baxsado wallahi miidiya adoo qaban ba soo fadhinaysa qaqaaqa ku haya adeeray cagadhigo ku aflagaadeen mayo anu waaridkayga samaanta dhacaysiin waaridkaan anu caayo mayo waarid la caayo ama adu wax yeeli kadhid ima dhalin aniga ee adeeray waxaa samaysaa danta aad leedahay raaco haddii aad garasho iyo qofnimo garanaysid waddankan ima ka jooga maala tiriseene anigana kabtaada ima qaado mashiin baan dhar ku dhaqdaa intaa hadal kugu filan haddaa ilaab garanaysid wey haddaa ilaab garanaysid oo aqligaagu aqli caadi oo qof weyn oo ilaab garanaya tahay wey ummaddaa kale isku waab cayrso dhalinyada yararka kuwa hadha waxaa jira fanaanadeeda ay soo maagtay ku dhahaya laakiin haddii jawaab dambe iga kaa timaado waxaan ilaawayaa inaad naag tahay weliba naag waxaan kugu sifaynayaa inaad tahay shaydaan laga qabanayo waddanka sideedana kula hadli doonaa baana kula hadli doonaa runtaana kuu sheegi doonaa laakiin waa kuu degayaa cagadhigo oo geedaha qaybaan la daaqin baa jira haddaad meel kasta doolaha ku ridin jidhay ma ahay kuwa doolaha lagu rito waa igu wen yihiin gabdhuhu meel kastoo ay joogaan ixtiraam baan u hayaa adduunka waxaan u nacbaa ninka gabar wax ka sheega baan u nacba ixtiraam baan u hayaa laakiin ha igu soo degdegi waa iga degniin meelo kale waa jiraan aad ka heli kadha quudkaaga baalkaaga iyo wax kala raadsan kadhi laakiin aniga ha iga soo raadsan intaas aan ku leehay wejiga caadiga aan leedahayna haddii ifan aad wax ka sheegaysid waa ku fasaxayaa dhalinyaro badan baa wax ka sheegta waxba ka sheegi kadha laakiin adoo wejigaaga tooska ah oo aan geedan soo maranayn oo cumar dhullu qabiilkiisa wax ka sheegay cumar dhullu saa yiri heblaayo kale bahashi saa yiri adoo oran
عادي هل كانت سوى فريستي أنا مرور صداع أنت تريحدي ومدنا وجهك قدرت تستيد وحاجة شيء لكن أنا خير يدرواجا واتد يدين تأبيه بقى أنا سان ربو حق الشيء سان ربو قفك عن وجهك صلاة قبلنا وانيق حدي عن قف قبيل كعينة هل كانت سوى فريستان ده أشدين سيدين تسلوه حقوقنا حدي عن دينا يو أما عن بعض فرانك قاضيان فرانك قاضي لكن أنا وجهك لا يهب لا أي حاجة كان على مصامره قبيلي فنان بانا قبيليات باتهاي قرنتي أولي بقى سقاب درن قبيل كو قليبات كونا يا يوم يو دوري تمن أدو أفرتن شيء بعد مرور صبرت قف مركو أفرتن شيء قبيل كسو قالوا وحكت لا هذا ما يشو أركو دولة كورتا أو قادم وياه إنه قبيل كاي هاي قادم وياه marka kula yaayo mayo afartii baad murursada ku gashay hayla su'aayeen murursanimada oo qalbada kugu dhisanta inaad murursad tahay oo murursad difaacaya soo farsaacay kana barbaray kugu soo dhaweynaya how much maanta ayda inteeda maanta hawiyada lahaan ayda oo sheeganaya halka oo dhaha ingaadiya saaxiiba waan waadi qof qabiilkiisa difaacan kara laakiin geeda kale iyo gabdha walaalaha iyo hadii la ku rayo cumar dhoolalayo ويلو والله عمر دولار دلي عمر دولار سايري Soomaaliya wajiga ninka saas oo qabiil nin intay waay aan nin intay ma xanto mana caayo meed canaantana ma ee haddaad aqal leedahay ama in yar dhaqana kugu jiro waxa samaysaa si caadi ah oo kartidaada oo isu kalsoon tahay oo aan wajiga fanaannimada fanaan ku soo qabanaysid ta soo fariisatid waxa tiraahdaa Ayuub baan wax ka sheegayaa أنا مرور صدق بقى أنا صوغ ما تشارتنا أي حكي شيء هذا كيس يلفوا جان متشعي إن دور حكي شيء بس نوع واحد هاي أي هبون هاي إنه طلع شو ولو أنا رنتك على جبناي أحسن يسا دول هاي يقصوا فداني مالك لو أتكغرامي كدي كغرامو وهذا ليس كوو بعرف وينا يسأل واحد يجري سأل ليه يجري kuwa dhar ku dhaqday waa helaysa anu baaf dhar kuma dhaqdo ima soo galo isu kabna manihin mishiima dhar ku dhaqda marka waa helaysa kuwa hafka dhar ku dhaqday kuwa la doono jaqjaqada iyo wajiga bedelashada iyo baalki hadii laakiin maanta halka aad soo fariisan lahayd sida aan isku ognahay caadiga aniga adigu halka aad soo fariisan lahayd oo danta aad iga leedahay ama ii caayaysid halka ka cadeysan lahayd wallahi billahi tallahi bareem ku siin lahayd keep going ku dhihaa abti لكن منافق نما لا تسين anigu ninka wax ka sheegayo ninka hadii ay haysano shafkan garaacda anoo Ayuuba ree hebelna ba wax kaga sheega siyaasigan galayo saaxiibkayga kale wax ka sheegayo magaranaysa laakiin ko soo gabado hebelba wax ka sheegay soo yaaray feere waxa ko soo gabadaan geedaha qayb la daaqin baa jira إذا كوا يراي أنا وأكل هلا أفرد بعد مرور صاك وبرات نجار ده يو ولا اللي بلاقي صراعي ينشلو بعد إلا وده إن الدعس كوي تاني برك وده ينشلي إياه دي اللي كوري وحي بعض تحتي حرام حامة جيس توب تحتي حاجة كوي ينشلو قال الله يو نوع العبادة فرا هي الرمال اللي كوي ينشلي كلا يلا ما كنا قناعي هذا رأي واحد قال ii garanaysid ama ay gaar dirsan tahay toosta ii soo aadid wax iga sheeg laakiin fanaan iyo cumar dhuulay marxuun dhintay ha ku soo meeraysan cumar dhuuladan wax ka sheegayana adoo murursada iga macalin kadib shada fuck qofka aan wax ka sheegay oo bareeraa cumar dhuuladan wax ka sheegay iga karin kuwa ka dhintay wax ka sheegay iga celin karin ilaahay mooyee anu aadane ma amaahiyo waxaan ahay munaafiqnimo kama raadiyo wajha laba wajina mari hal waji baan leeyahay cumar dhuule fanaan buu ahaa qaali igu cid kale ma dhageysto ilaahay uu naxariisto ciyaalka uu dhalay ee warsadiisa waxaan leeyahay hadaa wax iga tabanaysaan raalgelin ma ka siinaya cumar dhuule aniga kalmada saa u iri ula wadin hadalku cadi fiican munaafiqna maahi oo been ma sheego oo nin awoodaan ahay hadii aan wax ka sheegay cumar dhuule u socday inuu inta mar labaad soo fariisto wax ka sheegi kara nin awoodaan laakiin cayayaanka iyo quraanshada toddobaadka wajire
yaysan noo kala warramin cumar dhuule iyo warasadiisa cumar dhuule allah u naxariisto warasadiisana allah barakeeyo cumri dheer iyo cilaaso maanalada kaga baryaya baabkaasna waxaan leeyahay ma isticmaalo baababka anigu iyo mashiin baan isticmaalaaye si toosa iisoo ataag ama wax iga sheeg adoo murursado shaati murursada qaba shaatiga cumar dhuule kuma qaado kumana gale wejigaaga caadiga la soo bax anigu wejigaaga la fadhiyaa cid kama gabado walaalkay kaba yaraaw hadduu hadir baasaw ayuub kaa raw waxaan ku leeyahay walaalkaa kaba yare iyo cid aad magacaabanaysid iyo intaba midna wax iga kaa dhihi karo igamana kaa celin karaa waxaa samaysaa adeeray ninkala wareeji intaa kugu dhaafmayo waa saasoo aan xishoonayo afkayguna hadda af wax kasta kala waaye aad baa idiin salaamaya waxaa idin leeyahay maalintu ha idiin waanaato waa tahay marka hore dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan waa salaamaya marka labaadna salaanka bacdi waxaan arkay gabar qof dumar u eg oo maanta oo dhan miidiyaha iga aflagaadeynaysa waxaan u dhibayna maba garanayo sideedaba aniguna shaksi baan ahay ayuub baa la yidhaahdaayo dumarka si loola gurto ama loola jaqjaq yidhaahdo ma aqaan horeyna duruustaas uma soo dhigan gabadhaasi waxay ku andacoonaysay ayuub baa wuxuu caayay ninka la yidhaahdo fanaankii dhintay allah u naxariistee cumar dhuule cali cumar dhuule anigu ma caayin waxna kama sheegin oraahdana nina si u yiri nina soo qaaday dadka haddii si khaldan loo tusaya waa meesheeda laakiin anigu nin kale wax ka sheegayay oo li ummadda ku xamato cumar dhuule dhalay ayna soogi ka gudub cumar dhuule wax dhali kara dadna waa dhalay ilaahay dadkiisa ha u barakeeyo waana fanaan Soomaali legend oo ah oo dadka lagu daydo Soomaali kamid ah ilaahayna naxariistii janno ha siiyo isaga iyo waalidkiisa inta ka bacdi gabadhaas hal baan leeyahay horta dhaqan iyo dadnimo anigu dumarnimo baan kula hadlayaa hadda waa ku ixtiraamaya oo sidii qof dumar ah u waanin lahaa baan ku waaninaya horta aniga iyo adigu waxaan garanaynaa meesha aad igala qaaday iyo waxaad igu aflagaadeynaysid horta nin yaqaanaana wejiga aad ummad u soo bandhigaysid iyo wejiga ku qarsoonna waa kala labo ummadda badankeedna dad fahmaya oo garasho iyo aqoon leh Soomaaliya waa ka buuxdaa miidiyahana waa jooga waxa ka qaylisiinaya ka habhabsiinaya doolaha aad ruuxaysaahi waa ayuub baa khayr wax ka sheegay adeerta mid ka iraahday khayr inuu murursada yahay waa garta inaad murursada u tahayna waa garanaya balse mid baa ilowdi murursada kuma aqoon markii uu uule habarta hooyada ay qaad ku gadaysan uu uule ku koronayay inaga ardaalay labilay salaay marka hadii la ku rooyahay riyaha nuugu jiday murursada kuma aqoon hadii la ku rooyahay doolaqdan iyo hawiyanimadan ma adan aqoon isnaan lana ku yiri waa jeerteen baa ku dhashoon kugu qaadan taa waxaan ku leeyahay asha xawaarahaaga ha ka gudbi wasaasoo aan gabar ahaan kugu hadlay afxuma markay noqotana ana isku nacaano laakiin dumarka si loo xigto waan aqoon tan labaad oo aad ka dirsan tahan garanayaayo deena adeerkiim muxuu ahaa ninkii ma jeerteen muxuu ahaa Ismaaciil Salaani wuxuu ahaa ee ku yiri baabka dhar ku dhaqan mayo ee ka tagay de ma jeerteen ma wada ma jeerteen hadii mid ma jeerteen ku naco ku yiri ka dhaqaaqay inta aroos kula ballamay deedana ayagoo dharka ku noocaas ayagoo kulligood nooca ma haybad iyo aqalna waa u leena inaana baabka dhar ku dhaqan hadaad garasho iyo aqli iyo ixtiraam iyo qof waalid ixtiraama ama dhaqan Soomaaliyeed dad hayna adoo gabar Soomaaliyeed geesaha iyo fursada ma xiirateen dadku fanaaniin waa wadaya laakiin dhaqanka iyo haybada isdheeri maalin alla keenana inta idin soo fariisay adoo qof kala laado laguma arkeen
مالك سقف نبى كلا الله دايو كام ركام صا ولا يعني هو يوم كسودكت نيا ويا كل جمر وار ما يا الكعس ما لا كدكتي خضر يرو ام شرتك كورو اسمع لا كدكتي ما انت انا قال الله دا ما انا من شرتك انا دارو ان ku kala qabo mid baan ku leeyahay aan hadalka ku soo koobayaa kugu badin may annagu baa hafka dhar kuma dhaqano haddaan guursanayna dad caadi ah guursanaa haddaad garasho iyo aqli leedahayna oo maanta murursadu ay wax ka sheegay wacaysin haddaad garasho iyo ixtiraam leedahay habartii reer bicid yahaan ay ku soo nuujisay ee meesha la yiraahdo nagaar daalay oo leeysanayay